maaragtay eegi karo markii la bedelo mid kale tii ka dambeysay inay ka dhigto declassified laakiin wadamada badanaa hore maray waxay leeyihiin waxyaalo maaragtay procedure iyo la maro oo la yiraahdo maaragtay maaragtay xilli intaas laga waa inay ka soo wareegtaa iyo waxyaalaha maaragtay waxay leeyihiin maqaamo maaragtay la kala dhigdhigo ayay leeyihiin waxaad arkaysaa secrecy-ga dawladaha isbedelaya wax ay dawladii hore tiri waa secret oo maaragtay sir hoose oo adag weeye tii ka dambeysay oo bedelaysa oo ka dhigaysa declassified marka waxaan aan ugu soo gabagabeeyay nimankaas dhalinyarada ah shalay raggi talada hayay haddii ay arkeen in ciidan lagu soo tababaro Eritrea inay tahay secret iyo sir inay tahay haddii ay shalay arkeen faylkii maanta Xasan Sheekh baa hayee ha ka dhigo declassified weydiiya marka ma weydiinayaan oo ninkii hadda faylka gacanta ku hayay ma weydiinayaan kii soo wareejiyey bay maaragtay eryada yar oo maanta waxba aan ka samayn karinin oo wuxuu ka qaban karo aysan jirinin ninkii raba sidii maaragtay wuxuu dhaceen intii nin ay ahaayeen intii maaragtay la sameeyay Xasan Sheekh baa faylka ku hayay maanta gacanta ku hayay ha weydiiyo awood buu u leeyahay in uu yiraahdo sir maahan ama waa sir oo maaragtay laba fiirinayo taas waa taas oo maaragtay dadka maaragtay dhalinyarada intaad canaanan lahaydeen oo dhiireeda waa qaldan tahay oo maaragtay dawladda fubaatiin waxa uga haboon moor uga haboon inaan iraahno sirta wadanka dadka madaxda ka ah baa mas'uulka ah wixii ay yiraahdaan waa sirna waa sir wixii ay yiraahdaan sir maana waa sir faylkan iyo ciidamadan la geeyay Eritrea faylkoodii waxa gacanta ku haya Xasan Sheekh haddii uu maaragtay tala iyo tusaale ka maqlahayo la hadalo waxa tiraahdaa ka dhig declassified aan aragnay taas waa taas weeye midda kale oo marka guud oo aan rabeynay taas ay ku xirmanto aan idla wadaago waxa weeye sideedaba haddii shaygu ku saabsan yahay ciidan iyo dagaal iyo maaragtay difaac uu ku saabsan yahay waxa weeye waxa furo u ah sir iyo qarsoodi aniga waxaan ka shaqayn jiray shirkad Mareykanka diyaaradaha dagaalka samaysa baan ka shaqayn jiray oo aan ka ahaa engineer in badan ka ahaa design waxa la dhisaayo waxa la samaynayo waxa maaragtay la fulinayo wax kasta waxay ku salaysan yihiin sir bay ku samaysan yihiin iyo qarsoodi iyo inaan lagu arag diyaaraddu waxa weeye waa stealth aan ka shaqayn jiray anigu war raba inaan maaragtay magaceeda sheego waxa weeye stealth waxa la yiraahdaa raadeeradu ma qabanayaan way ka dhuumanaysaa oo maaragtay raadeerku wuxuu arkayaa iyadoo marka madfac qabsaday buu arkayaa marka ciidan iyo dagaal waxay ku sameeyeen kombiyuutarada aan ku shaqayn jirnay oo maaragtay wax ku dhishi jirnay maalinkii ugu yartahay Chinese 1500 oo jeer bay soo weerari jireen oo isku day jireen maaragtay jabsadaan oo waxa aan maaragtay ka shaqaynayno ay la baxaan marka ninka waxaan anigu marka garan waayay sheeganahaya aqoonta iyo maaragtay tababarka iyo khibradda sheeganahaya oo leh muaskarnimo iyo askar iyo tababar iyo maaragtay qalab ciidan iyo maaragtay difaac wadan maxaa loo soo bandhigi waayeyo maaragtay looga dhigi waayey public information marka taasna maaragtay dhalinyarada ugu daro oo la wadaaga waxaad tirahdaan wax allaale wixii mucaskariin iyo difaac iyo maaragtay ciidamo la taxalluqa wadan kasta waa u sir weeye waxaan idinku soo gabagabeynayaa tusaale ah dadku waxa weeye waa wadamo hore maray weeye waa lagu higtaa laakiin marmarka qaarkood waxay leedahay khatarteeda ay leedahay Mareykanka oo kale to anigu Minneapolis baan wax badan deganaa Faisal iyo waxa weeye si fiican isu garanayna nin oday weeye oo maaragtay khiyaara September 11 markay dhacday fiiri September 11 inta Mareykanka lagu soo qaaday dagaal oo ciidamadiisa la soo jabsaday daarihi laba burburin niman soo dhuuntay oo isqarinayay oo magacyo iyo maaragtay dokumentiyo falsa ah wata baa maaragtay weerarkaas geystay intaas oo qofna maaragtay dilay magaalada Minneapolis aan joognay aniga waxa iga warrabay ninkii markaas ka ahaa duqa magaalada baa iga warrabay wuxuu yiri maalintii daaraha la burburiyay habeenkeedii 3500 oo nin oo ciidamada amniga ah Minneapolis lagu soo daadiyay anigu kaba warqabo oo maaragtay waxa laga baqayna waxay ahayd inuu qarsoon yahay dagaal kaleeto oo maaragtay weerar kaleeto oo gaadma ah baa laga baqayay oo loo isticmaalayo Soomaalida bulshada Soomaalida loo isticmaalayo subaxiiba waxa soo wacay buu yiri madaxweynaha wadanka soo wacay wuxuu yiri xalay magaalada waxaan ku soo maaragtay ku soo daabulnay 3500 oo nin oo ciidamada amniga ah baa ku soo daabulnay buu yiri maaragtay baa ku soo daadinay ciidamadaas waxa la rabaa
maadaama adiga biliiska oo kale ay ku hoos yimaadaan waxaan rabnaa inaad la shaqayso haddii nin kaa soo cawdana oo maaragtay ciidamadaas ka tirsan nin ka mid hadduu kaa soo cawdo adigaa maaragtay adigaa u qoolan oo maaragtay ka mas-uula oo haddii ay kaa soo cawdaan ciidamadaas iyo maaragtay hawlgallada wadaan aniga wuxuu yidhi meelaha fiirfiiriyey waxaan yidhi maaragtay ciidamadan sharci maahan iyo maxaa maaragtay mar hore laygu sheegi waayey iyo procedures waxaa la yidhi xaalad dagaal baa taagan buu yidhi madaxweynihii ka bax haddaad maaragtay dacwad iyo maaragtay ashtako aad qabto markii xaaladda dagaalku kala degto maxkamad tag oo maaragtay ashtaka qabras saas oo fiskiga arti reegback baa la dhihi jiray ninkaas qisooyinkaasna waxa weeye buwaagtiisa waxa weeye waa ku cusub yihiin marka waxa ay xoojinaysaa oo tusaysaa waxyaalaha difaaca iyo dagaalka iyo maaragtay ciidamadu annagu waxa weeye dad shibil aan nahay laakiin ciidamada iyo difaacu waxa weeye waxa ay ku hirgalaan ama ay ku dhicisoobaan waxa weeye sir iyo qarsoodi bay ku dhicisoobaan marka nimanka dhalinyarada intaasna ugu daran waa mahadsantihiin dowladda horta sideedaba in ay sirteedu qarsoonaato oo ay macnaha hidden protocol ay ku shaqeysaa horta aad u fiican oo barnaamijyadeedii iyo afaaraheedii meesha wax ka qabanaysay ciidankay tababaranaysay iyo waxooda dhan aan la ogaanin sida hadda raggan khabiirada jamaal oo kale hadda hadalkiisa aan maqlahayo maasha allah marka hore jamaal horta walaalo horta waan kuu mahad celinayaa aad iyo aad kulley waxaan dareemayaa nin dhalinyaro oo experience badan leh oo meelo badan amxayadii isku maray baa tahay xaaladda siyaasaddii iyo dawligana ay wax badan uga bilaaban yihiin maasha allah adigii fiido iyo yuusuf iyo aad baan idinka mahad celinayaa ilaahayna carabkiina iyo codkiina iyo aragtidiina iyo caqligiinaba ha idiin siyaadiyo maasha allah dadka macnaha maxayadii way isdhex yaalaan dadna waa dad caloosho oo shaqaystayaalahoo cadow fara badan u shaqeeya oo meelo badan u shaqeeya siyaabo badan u shaqeeya dadna waa dad ay wadaninimada soomaaliyeed meel walbo ay tagaanba ay qalbiga iyo dhiigga iyo xinjirta macnaha ay kaga midaysantaha waxaa jirta maamaha yar oo sooxil oo inkastoo ay fiican inaan idiin soo qaado ay macnaha maxaydi qofku wadaninimada macnaha maxaydi ay u isticmaalaan way dhahaan damu ni muzito kulika maaji bay dhahaan yacni dhiigga wuxuu ka culus yahay biyuhu ka culus yahay annagana soomaali markaan waxaan isku maamaa waxaan dhahnaa qofkii markii xoogaa yar lagu yar dareemo waxaa maamaa ruuxan ma baraambar baa dhiig la-aanta marka horta qofka soomaaliga waxaa habboon inuu ku baraarugo inuu soomaaliya dalkiisa iyo dadkiisa inuu wax ku yahay meel walba uu tago magac uu wato inuu soomaaliya inuu ragannimada iyo ciziga iyo sharafta iyo karaamada uu ku faanay ay tahay calanka buluuga ee xidigta dhexda kaga taalo iyo quwadda iyo sumcadda dalka iyo dadka soomaaliya ay huwan yihiin nin marka macnaha maxayday $2 macnaha maxayday loogu soo shubo ama siyaasad fikir macnaha maxayday shishay ku shaqeynay horta anigu waan la qabaa kooshin in macnaha maxayday laga saaray spaceka oo macnaha maxay weliba allah ugu dartaan tusaale yar hadda daraato hadda muqdishoan jooga daraato xerada ugu weyneed ee imaaraadka waagi hore ay ciidan ku tababaran jiray ay dhisteen oo la dhaho jenaraal gordon 6 bilood ka hor baa la baneeyey waxaana loo baneeyey ciidanka eritrea in macnaha la keeno lagu soo dejiyaa marka hore loo baneeyey 4 xero dhexdood bay ku taallaa daraato ayagoo 3 gaadhi wata wasaaradday tageen ma aqaano waxay ka dooneen 4 xero ay xeradan gordon ku dhex taala mid ka midaan anigu marka ayada ku sugnaa meel ilinkeedaan marka iyada taagna gaariyar baan maxay ku jiro oo man taagna oo nagu maxay bar control taagan bay lagu soo laabteen mid ka mid ah intuu gaari ka soo dhaxbacay buu kaamera la istaago wuxuu dabay inuu xeradii iyo xerooyinka inuu sawiro wiil askari ah kolba saarnaaba sanka ka geliyay baa laxbada day waanin ajnabi ah safaarad buu leeyahay qaab buu leeyahay sharciga u banaynaya in untu magaalada dhex maro oo xiriya ciidanka dowladda soomaaliya ay lahaayeen oo kaamera intuu ka qaato uu video ka duubto bal fiiri waxa weeye hadda ninka aad ka hadlaysa kaas nin uu shaqeeyo wey midda kale ninka kule ciidanka eritrea in la geeyo kaamerooyin oo macna maxayade lasoo duubo oo lasoo tabiyo kule ninkaas exactly waa nin macna maxayday u shaqeynaya foreign political affairs u shaqeynaya ama laga yaabo inuu shabaab u shaqeynayo
وأن الربا أود يقود عيدا كصومالي لو سطبري دولة صومالي لو سطبري إن أي هلان شباب ود أنت إلا كتاي يقاب كلو سطبري إن هلان الربوي وأن الربا دولة لها شيء كي ينولو سكيسو عدو ينوا الصومالي جريتان كذي بسمية ذكرهم إن أي هلان halka aan ka wiiqsanay halka ka dibacsanay ciidanka qaabka loo dhaxgeli karo local furfurka waxa marka ninkaas min hadda aan ma arka anigu waxa uu qoran min aan journalist oo aan bayday baarlamaanka adigu waxay kaas wax baarlamaan uu ku yahay iyo haddii uu baarlamaan wax ku yahay muu weydiiyo askariga Soomaaliga ee furinta joogay dhimanaya ee roobku ku daayay karaacad cunayso xuquuqda uu dalka ku leeyahay maxay tahay muudho ka dhaawacma ee dhaawac uu dhimanay ee sariirta saaran xuquuqda dalka uu ku leeyahay xildhibaankan 4 kanadoor uu qaadanay muu weydiiyo xildhibaanka asaga mukeefka ku jira ee qabowga ku jira ee hotelka markuu galana 5 saac 10 saac iskaga jiray ee allaysadii iyo alfuurnadii iyo roosatadii iyo koosatadii iyo kalluunka isla dhacay askari asaga wardeen amnigu wajir oo banaanka saaka alisidi asoo soo quraacdo soo laga yaabo 8 saac maalin asoo qado inuu guri ku celiyo sababta iyo xuquuq ku kala baysan asaga waxa cuno askarigan uu qataraado shil lacag uu sinin muu weydiiyo aduunin sax uu yahay Soomaali uu yahay marka waraad ku mahadsantihiin Jamaal iyo Kooshin iyo Odawa iyo raga khiyaarta ah aqliga Ilaahay siiyay ni wallahi ida barakeeyo aqliga sharafti iyo aqoonti Ilaahay idin siiyay waxa soo kale marka aragtaana inay space ka saarto iska daayay xitaa wallahi dad garanaysan meel uu joogo inaad ugu dartaa maariyo macna hay'ad min farila aad iyo aad u mahadsantiin haddaan khaldamana laga raalaado waxa weeye xogaayar oo waxaan leeyahay yar midfaan leeyahay xaq ciidanka laga maro aad baan idin salaamayaa inaad ka faa'iideyso aqli aan ka helo aqoon aan ka helo aan wuxuu idinka faa'iideysan idin soo dhaxgala inkastoo in iskari inuu siyaasadda soo dhaxgal ay sameeyaan haddana adii min waa waajib ay ugu tahay inaan dadkeena wax la qaybsano siyaasiyiinta wax ka ogaano shacabkeena wax ka ogaano sababtoo ah anagu ciidan markaan nahay waxaan huwanahay sharafta iyo karaamada iyo ciziga bulshada iyo dowladda Soomaaliyeed baan huwanahay waxaan u dhimanaynaa oo dhiiganaga iyo naftaanaga iyo maalkaanaga aan u huraynaa in ay dadkaanaga Soomaaliyeed ee shacabka inay dalkooda nabadgelyo ku socdaan gabadhaanada iyo wiilkaanaga dal shisheey colaadihii iyo dhibaatadii iyo gaajadii ay u geysay ee intii dhimatay ma intii noolay ee Ilaahay nolol siiyay rafaadka iyo kufsiga iyo dhibaatada intay mareen iyo cunqoydinta magafaa nabad dalkale ku tagay ee soo shaqaysan wax soo bartay inay dalkooda nabad ku soo noqdaan oo ku shaqaysan karaan ee ku hargeli karaan ee ku damaashaadi karaan macna u dhimanaan u hooyanayna haddii marka qashin kan oo kale macna intuu soo dhaxgalo uu rabo inuu idinka macna virus ku abuuro iska bixiya laadna ugu dara asagii ayadiisa ish xumayna macna ish fartiga galiya aad baad u mahadsantiin waa ina salaamayna mayo jiro joogo Ilaahay idinkii amrigiini caafimaadkiina Allah hada Ilaahay idinka aad baad salaamaya aad iyo aad baa mahadsan tahay walaal Alfa Xasan waxa weeye runtii si wanaagsan baa u hadashay wax deelqaaf la kuma hadal waxa weeye xaqiiqda qaadashay dadka noocaas mar walba anaga waxa inaan la jihaatano waxa weeye aanu iska qabanno aan diyaar u nahay runtii waxa weeye adna ma taqaanaa nin muwaadin oo dalkiisa u shaqeynayo oo maaragtay shaqo badan hayaba tahay Allah ku xafido annaga mar walba maaragtay annaga aragtideeda iyo mabaadi'deedu waxa tahay qarankeena ilaalino astaamaha qaranka ee maaragtay ajendaha qaranka iyo ajendaha siyaasiga waa kala naqaanaa mar walba annaga ciidamadeena ilaalino qarankeena waxa risto ka inaan ka horjoogsano taas annaga weeye maaragtay waxa weeye annaga ajendaha mar walba annaga tiimka yaga nabadno lahaan mar walba waxa garab taaganahay ciidamadeena qarankeena iyo dalkeena annagu waxa weeye haddaanu siyaasiyiinta aanu taageersanayn oo dowladda maaragtay nidaamka soo horjeedno haddii sidooda oran mayno ciidamada caayimayno argagax oran mayno hubka ka joojiyo oran mayno ayaga dacwada ka qoranayno annagu waxa weeye nidaamka iyo maaragtay siyaasadda baan mar walba annagu ama dhaliilana ama taageer ay wax ka sheegaynaa laakiin ciidamadeena iyo qarankeena iyo maaragtay ajendayaasha qaranku mar walba maaragtay waa taageersanahay waana garab taaganahay guuleystaan ilaahay hadduu ilaahay yiraahdo aad iyo aad waxaa siinayaa walaalka Xuseen baa siinaya gacanta taagan tahay بسم الله الرحمن الرحيم
dhammaan madasha waan soo dhaweynayaa si fiican baa dooduu socotay iminka ma dhowatani ku soo biiray anuu hal shay baan ku darayaa horta sideedaba sirta ciidanka islaamka muxuu ka qabaa waqtigii rasuulka sallallahu alayhi wasallam muhiim waxaa dadku inay diin iyo maadba aqoon badan u yeeshaan wixii beecada iyo mujtamaca loo baneeyay inay odaadaan iyo waxa qaranka guud iyo madaxda loo sameeyay ay gaar u tahay sida adduunyada haddii adduunyada oo dhan waxa dawladda jiro ciidan cidi kama hadasho maraykan intaasu 200 wadan ka badan baa ciidan u jooda wax dawladda siyaasiyiinta iyo mucaaradka ay waxaafad ka hadlaya ciidanka halka tiradeed halaashay ma jirto adduunkaas ciidamo isu tababara isu geeya wax ka hadlaya male wixii siyaasadda arrimaha bulshada un baa wada hadlaa oo campaign lagu kara marka hadda waa aqoon darada Soomaalida haysata oo dhib ah oo 30 sano ay kaliftay waxay doonayaan waxna waa in mujtamaca wixii arrimaha bulshada ku saabsan ee horumarina hadday waxbarashadii caafimaadkii hadday warshado tahay hadday beerihii tahay hadday deegaanka wixii dadka loogu talagalay inay odaadaanna waa kaan laakiin wixii ku saabsan military iyo ammaanka dalka oo ciidamuhu oo dhan soo iskalaya waa sir khaas ciidamo odaad maxaa yeelay rasuulka sallallahu alayhi wasallam waqtigiisii waxaa la tilmaamaa inuu arrimo badan oo qaybta ciidanka markuu duulayo kale saxaabadii uu la joodo oo ay dagaalkii heegan u yihiin oo doonayaan inay baxaan ay oran jireen halkaasaynu ku duulaynaa meeshay ku duulaymaa meel kale u tilmaami jiray waddadaasaynu marayna magaaladaas meeshaasaynu ku duulaynaa meeshii markay xoodaa u sii jiraan buu ka leexa jiray kabacdina waxay oran jireen saxaabadu rasuul allah sunu iyo meeshaasaynu ku duulaynaa markaasuu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiis saxiixa weeye al-harb khud'a dagaalku waa khiyaamo buu rasuul wuxuu aninta wada taxadarayay intaanay meesha ka dhaqaaqin in ka mid ah munaafiqiin badan baa ila ku jirtay inay warka gudbiyaan oo sii sheedaan iyadoo meeshii loo dhow yahay buu leexa jiray markaasuu rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam al-harb khud'a dagaalku waa khiyaamo marka waa ka duwan yahay dagaalka ciidamada iyo tababartoodu hubkoodu saanadoodu awoodoodu dagaal haday galayaan waxa oo dhan waa ka mamnuuc waa qayb ka mid ah dagaalka khiyaamadiisa marka haddii la odaado tirada hubka haysatid ciidamada intaa la tahay waxa tababaratay xarikaada waa la hayaa oo adduunyuhuna intaas Ethiopia imika marka weyn la fahmaa sharaacadu sheegida banaysa xataa waxa ka mid ah in ciidamada xataa qarsoodi tahay meeshay ku duulayaan meel kale uu taliyo u sheedi karo waa sheeyada macsharaacada ku banaantay in been la sheego maxay rasuulka ilaahay ayaa yiri al-harb khud'a dadaalku khiyaamo ma fahanti marka asbaabaha oo dhan oo culimada muslimiintu kutub ka qoreen qaybaha ammaanka iyo qaybaha bulshada ka dhaxaya waa kala laba marka wayna wixii aqoon u yeelad haddii report kan ay ilaa shalay qorayeen reer galbeedka jaraa'idadooda waxay qoreen ka taran waxa ka mid ah waxay yiraahdeen militariga waxay ku dhowdahay in waxay tahay militariga noqonaysaa kuuriyada waqooyi ee Afrika kuuriyada waqooyi Afrika ayay ku socotaa waliba waxay ku socotaa xagga horumarkeeda marka la eedo si uu socoto inay waadhow Singapore noqoto maxaa yeelay wadanka wax qabadka ka socda ee si uu ninkan u sameeyay maxaa yeelay halka ma gaareen awoodda iyo tababarada noocaas haddaan reer galbeed meel iska xidhay inta reer galbeed meel iska xidhana cidaan baa horimad gaadha wadamadii isu furay ee ay gacanta ku dhideen waa kuwa wada burburiyay ama Afrikaat ama caalam islaami waa baabiyeen ay dhex galeen marka weyna odaata sharciga islaamiga xataa shayda uu baneeyay iyo shayda aanu baneyn iyo shayda uu ogolyahay qaybta militariga oo dhan ee militariga soo hoos kara waxa kamid militariga waxay soo hoos kara waa badi waa cirki waxa weeye booliska waxa weeye sirdoonka waxa weeye asluubti waxa oo dhan militariga soo hoos kara haduu farxamay wixii ciidan ku saabsan khud'a la yiraahdaa wixii hub ay leeyihiin waxay tababarayeen cid shicib odaa karta xataa maaha maxaa yeelay waa arrintii amniga dalka waa hubkii qofka muslimka uu leeyahay marka inay cid odaato shariicada maaha marka wayna hata wixii barataan oo wixii aqooninayo diinta maxay ka qabtaa iyo maxay ka qabin ma fahanti marka sida uu odaada intaasaan ku daraya inuu yahay al-harb khud'a oo waqtiga rasuulkana ay intaasoo kiisas dhaceen isagoo marka ilaalinaya awoodda tirada ciidanka muslimiinta wallahu a'lam billahi tawfiiq mahadsantahay Hussein boontigaas dad badan baa hadda oo meeshan la jooga haddaan xarga ku qabanayn oo ogyihiin inaan xarga ku qabanayn annagu soo istaagay maxaa annagu nooca manihiin federaal baan nahay ciidankeena inta la tababarayo inaan ogaanaa rabnaa sawirro laga soo qaado meesha ku tababaranayaan tababarkooda ogaano qaabka ay yihiin in tiradooda ogaano
garanaysaa hubka lasoo siinayo qaybaha ay kala yihiin dad raba inay si publica ayagoo ama journalistayaal ama siyaasiyiin ah saa wax adaa ku watay dadkan waa dad doonaya inay riboodkii oo dhan gudbeen maxaa yeelay adduunweynuhu sidaasay isu daba galaan ciidamadu siday u odaadaan waddan kale hubkiisa ciidankiisa wuxuu taba waa la isbasaasaa ma fahanti laakiin nooca soomaalidu u dhaqmayso ee doonaysa askari walba inay odaato waa xaaraan waana maqdac dadka nooca ka shaqaynaya waa dadii markaa doonaya inay awoodii dadka iyo ciidankiisa iyo tiradiisii wixiiba haddii dibadda lasoo dhawo ku dhimaatay marka islaamkuna ma ogola xataa riwaayadaha iyo adilada iyo kutubta laga qoray adilada xadiisada culamada muslimiintu taariikhdoodii maaha wax uliya marka dadku aqoon badan ha u yeesheen noocana u dhaqmayaana nooc halista weeye dadka wareega baraha bulshada ku jiraana waa inay weli waxaad arkay kuwa PhD sida u sheekeynaya sida u hadlaya isma oranaysid dadkana wax bartay wallahu axmed ku socooday sanadka aqoontaada laga soo galayba kuwa aqoon-yahanada injineerada iyo profesorada iyo sheegtay doctorada baaba noogu daranba Soomaali haddaan nahay dhibaatada dalka haysataba qayb ka mid weeye kuwaas sababtoo ah doctor fiicanna waa arki weynay oo dalkiisa iyo dadkiisa u damqaraya iyo professor iyo engineer sidaas oo kale ah marka waxyaabaha dadkeena lagu marhabaabiyay bay ka mid tahay